waxaan sugnaa halkan waxaynu ku xusaynaa sanad guurida ka soo wareegtay isdiilaan jirkii Puntland muxuu macnaheedu yahay markaan leenahay waxa ka soo wareegtay sanad Puntland waynu xusaynaa maada nacni maxaan uga jeednaa si sabab qofku waxa weeye mujtamaca ama basharku ma gartaan marka waxay ku sugan yihiin mana jaagan karaan mustaqbalka waxay doonayaan haddaysan dib ugu laabanin meesha ay ka yimaadeen marka waxaan rabaa dhowr qodob gaaban inaan ka hadlo awalan Puntland asaaskeeda inta la asaasin maxay ahayd hadda se xagee maraynaa mustaqbalka maxaynu higsanaynaa maxaynu khataraha soo socda aynu uga feejignaa karnaa waxaan filayaa Puntland inta la asaasin halkan ama qof ama laba kaliya jooga marka aniga laga reebo oo garan kara meesha aynu joognay markii Soomaaliya ku dhacay collapse central government-igi oo qof kasta meesha soo cararay dadkii waxa uu ahaa Puntland yimid Puntland xilliga asaga ah wax Allah wax qofka bini'aadamka u baahan yahay oo ku noolaan karo ma lahayn ama waa yaraaba wada ma lahayn oo dhakhtar ma lahayn oo iskool ma lahayn oo horumar kale ma lahayn oo internet ma lahayn oo wax ma lahayn waxaan xasuustaa in mesela wuxuu yahay hadda ka hor hadduu soo bixi lahaa nabi aadan wuxuu laba magaalo ma uusan ka lubeen markaasaa le maxay yihiin wuxuu waa sanacay kharduum waa si rabbi ku abuuray marka Puntland xilligaas si ilaahay ku abuuray bay ahayd wax yani dad waa jiray laakiin wax ka jiray oo nolol ma jirinin waxaan la ogaataa marka la qiyaasayo cimriga dawladnimo 28 sano waxay la mid tahay qof 2 sano jira ama 1 sano jira yani haddii u firiisato waxa la yaabaa hal guri in lagu dhiso 5 sano 6 sano guri kaligiis waxa u maanaysaa dawlad dhan oo ugu yaraan oo ka badan 5-6 kun oo kiiloomitir dherkeedu meelo qaarkood gaarsiin meelaha qaarkood marka Puntland caynkaas ay ahayd waxay ayadana waxba ka jirinin ama very bad wax kasta ahaayeen maanta xagee maraynaa hadda weey ilaahay mahadiis waxaan iskool ma jirinin maanta waxa la sheegay in ku taala Puntland in ka badan 1,330 iskool hal jaamacad ma lahayn maanta waxa ku taala Puntland 22 jaamacadood dawladii dhacday oo Soomaaliyeed waxaan ka dhaxalay wadada yarta ah oo ka baxda baraada Boosaaso ilaa iyo dariiqa dhexe iyo dekad yar oo dekad ma hayna iska barkad camal ah oo aan xataa dawladda fiican ku soo xiran karanin maanta xagee maraynaa weey maanta caasimadeena Garowe waxa loo yaqaanaa Singapore East Africa wadooyinka iyo horumarka iyo dhakhtarka iyo ganacsiga iyo nalka iyo wax walba wadooyinku waa cid kharbad sheegtaan ma laha bal waxa kaliya ka xusi karaa in 90 kiiloomitir wada ah oo aan hal cid naga taageerinin inta laga qaaday caldaar ilaa ay baran hadda ay marayso inta kalena ka sii daran hal magaalo oo biyaha lama arko biyo hal magaalo ka kacayaan mid dameer soo daan jiray biyaha hal magaalo biyaha lama arkin maanta Puntland nin waxa dhageysanaya maalin reeqooyo wuxuu soo maray Boosaaso ilaa iyo Garowe waxaan ka soo tiriyay 9 magaalo oo 9 ka magaalo ay leeyihiin biyo gelin iyo wadooyin horumarkii waxbarashadii wadooyinkii isbitaaladii wax kasta oo maanta qof bini'aadan u baahan yahay maanta Puntland waxa weeye ilaahay maadis waa haysataa waxaas maxay ku soo weereen waa in ka badan 28 sanadood 28 sano waxa loo qaban karaa haddii aan dabcan hadaan wadcayaan company aan initiate gareeyo inta oo soo structure company-gaas HR ki iyo financial structure ki iyo waxa la yiraahdo waqti dhowr sano dawladan oo intaas la 28 sano oo horumarkaas gaadhay wallahi waa miracle waa wax aan caadi ahayn bini'aadamka waxa loo baahan yahay nicmada ilaahay siiyo inuu dareensan yahay haddii nicmada dareensanayn dib weeye
هذا قفك وحقبتها أنها إنه خير ما كسي أو ما نقين ودواته لأنها مدرسين قال واحد هذا عشرة لا قال وجهلنه وفي هذا وحن ما كان سوى وحن فينا كندا تاكس ريفيو كذا لقاته وصدح بقول يأفرت الإستيد بليون أو دولار صدح بقول أفرت الإستيد بليون أو دولار ما قلنا ليس كندا رنين كورس غير كندا إنه كافي كره حتى لا أضرب وما عشور لقاء لقوم قبل كره لكن وحوي واكرتي يضمنه يمامل يشعب إسكاش ذي وي إلى هنا نقدر قلي ما هو مركز يجاي محاضرة اللي يقول بهاي إنك هذول نهري بنتلان أنت أسكيلك ما كان سومالي بقرب اشتاكتي ما أنت بنتلان وحنا كنا سيدا لشيله هل مليون يشم بقول أو كن أو قف أو سومالية أو كيمة قولة كله أو كشقيسته أو دجن أو كل هذا أو كبر واقيسه دولتي سومالية أو باب علي أنت لا غالب وساسة لا كحيي بإلا يدل سومالية لقي وشعب بنتلان جاي إمام يكون يعيد كله مرة واحدة شعب بنتلان أيوة واحد سقطين أو الصومالي واحد وقبتين وإلا هذا واقشي السعودان لكن واحد موضع إن فرضوا إننا نعمله إيه أنت أيضا إن كبر عرب سنين وأين حوالي سكوبيرة تقول سنة هاي أما أين لا دبعوا فهم كنا اللي راح دبعوا طويل كي لا لك وحلي ساقاتان دي سال أقول لك هانشري وحكوا كذا يفتكر بابا كذا كل دبعوا قيد كل يهايو ضدك وعجين الله سمينين ولا بشيء أنا وحنا كده يبغى أساسه ما تيجي لو ديك لو يفرق بيها دي عرض من الحسود اللي إن مليار أو مدبر كده نتاعي أو مركز يا ربي يسوي سافر بإنه ده حياته معي وحساس بحياقيق يسيجو يقور ووضيع ما أنت بنت لو حكوا على صدح لما ريبورت عالمي يكن كفاءة صوصعة يكون كفاءة صوصعة تاريخ أنت لا قصية أفريقيا أما حتى دون كبا وشعب ككريا أو شم بقول أو مليون أو دولار كل سنة يصير كذا يوليه وتقدر قرعة مالك مدعني ده كذا بورصة وشرا وحنا في سنة أي مركب إسلا حتى أنا حكي من الخليج ما بعرف ما كنا عاصوا خلاص أنتوا ليه هاي بشلك سحرنا أي وحنا حس هذا كله هل كان وحنا كرينا ألعاب أنا أورينا إيش بتطلع قال كعي عجارة قالوا لي فريس مركب حي لهذين بورصة ما جاي كرنا وايد كونتير ما جاي كرنا وين بيها بربرة أم حمر ما أنت ده كده بورصة ساسو راعي كونتير الرد كان قلعت كذا إربوط بورصة وارثة إربوط قالوا وارثين هرمرك ودويك وارثين إسكولة وارثين وح عادي معها إلهي مهدي سوي إلهي فضليش بأرتاس الوجاري كبعدي إن أي إسكاشية ما ملك يشعك مش هتشوفي وحال لوب باهية إنك اللي لوب باهية إن أي أرتا يدا إن كبر ركسان أولا سيدنا مركب حاوي أن أجهدون كرام مستقبل كينا وحياها حنحاول نقول كفتوم كرنا هو خطرت أن أقول وحاوي ولو كان الكينا ملها يعني ميديا ريلايبل أو لو كان صوران كرا وحي إنه كقانا وركب توب إيو شخص حن إيو من حاسدة إيو من ببكاء شعل وإن فرضوا أيوارة تريد أي يقول نوليه ذلك ما عصوا كراء waxaa loo baahay in bulshadiinu aad ka wacyi galsoon tihiin aad og tihiin kuwaasu in aysan ahayn waxay sheegayaan wax jira inta fiican ay badan tahay dowladdiinu ay wax fiican qabatay shacabkiinu ay wax fiican qabtay idinka la idinka baahan yahay kulligiin inaad ogaataan inaad hal dowla saaran tihiin dowladda hadday doorashato kulli waa dumaysaa ma aha qof yidhaahdo anigu waxaas waraay haddii aad bahay wasiir yahay ama inaadkeen wasiir yahay isagaa isu ah laakiin waxa aniga muhiim ah in dalkayga iyo dadkayga meel ku shaqaysan karo oo wax ka baran karo oo aan waxa dooyay ka heli karo in ay taalo oo aan ku kalsoonaan karo aan leeyahay taas way muhiimadu ma aha in ilaa wallahi reerkayga wasiir waayo oo waa carabeyna oo bunta la hadunto waa shid wax alfan xun weey
ووضد رنتي لأوركر وأمد هردت كنوع صدق ما يأكله مركو حلوبه إذنك لليرضى إن أذكر سواعي جلسان شعب كان وعي جلسان خاصة وحلوبه هي ذاتك باللياشة وما راح نقول ذكا كنت كهالله وأمد اللجوينا وبيت وشيء إن ليه شكل له دفاع قف كستوى غرة أما وحدوبة وتجيه لكن وحده كنت جاي وتوجيه حسمين الوقت بريك معرفة فرحة قلني خاصة بريء واحد صباح يكون بالشوية حتى وذاته أو شغلة نكتي دائما اسكتلك أمضة يدولده كدكتورنا وإحنا عصو كلا كدكتورنا فروه الكفر هذا مكتر واكي وهذا بنعرفه ساسا الله لما أنت بس أنا فريا وعن كسرك وكبينيا إلى هاي قلت لها حفظه سوالها حفظه لكن هو واحد لو هي إنه مثلا قلت لها أهميتك هو هذا أنا سارا وهرمك بنت الله نبى وحالي النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بوافعه بوافعه كنله لبيك بشمونك وإحنا عسكلا مركزير محيته بشمونك مركزير نبى نسوي حشية مركزير أقول له حشية مركزير مي أو هذا الحج بمقاريس فبعدين حج عن فلان إنه ما كان يوم كنت لا أحكي إنه بينعت كلام تلا مكانه أنا ما كسر شيء أنا اللي هو فدرالك حتى كنت لا أحد نقطة بريوت الكوبات كبعد أي نمسك هذا يوم كان سار كل يوم وأنا ما سنتين وأعطيك عليه السلام عليكم ورحمة الله